بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواذا ولا لها شرفت له كحيران channel كينا عافيمات كاي عافيمات channel إن شاء الله ما تحاربا توبق مهم إن مهم سهاي بلشد إني أقادان وحقوية هاي سيدا لوغو داويو سيدا لوغو هرتاقو يداو هدولي هاي يهدي كلابا إن شاء الله نمان وحايتكا بغن دونتا فيديوغان إداو شوعان ugu horeyn cudurka aan maanta ka hadli doono waa AIDS. Cudurka lagu magacaabo AIDS-ka waxaan ku bilaabi doonaa marka hore waa maxay AIDS. AIDS-ku waa astaamo cudureed oo isku tagay oo ka dhashay burburka difaaca jirka. AIDS-ku sidiisuba waa astaamo ama calaamado cudureed oo isku tagay kaasoo ka dhashay burbur ku yimaaday difaaca jirka. burburkaasuu sababay fayruska lagu magacaabo HIV. jirkeenu waxa uu leeyahay difaacaasoo iska celiya cudurrada. HIV-gunu wuxuu burburiyaa difaacaas, taasina waxay u sahashaa in xanuuno iyo caabuqyo kala duwan ku dhacaan jirka. haddaba ereygan AIDS muxuu ka tarjumayaa, maxaase laga gaabiyey, micnaheeduna maxay yihiin? AIDS waxaa ugu horeeya xarafka A waxaa laga soo gaabiyey acquired, taasoo ah haleelid ama ku dhacid, qofkii inuu haleelo ama uu ku dhaco cudurkii. ayda ku xigtana waxaa laga soo gaabiyey immune, taasoo micnaheedu yahay jirka in uu la dagaalamo jirooyinka ama xanuunada. xarafka saddexaad waa D waxaa laga soo gaabiyey deficiency, taasoo ah jirka oo tabardareeya. xarafka ugu dambeeya waa S waa syndrome waxaa laga wadaa kooxo cudurro oo isku tagay. ayaa waxaa la yiraahdaa syndrome. haddaba qofka marka uu dareemo cudurka AIDS-ka waxaa tabardareeya jirkiisa, kaasoo la dagaalami waaya jirooyinka kale, waa uu dhintaa. qofka AIDS-ka qabo waxa ugu badan ee uu u dhinto ma aha AIDS-ka laftigiisa ee waa cudurro kale. sababtu waxay tahay qofka difaaciisa jirka ayaa low ama aad u hooseeyo. laga yaabo xataa qofkaas hirgab inuu u dhinto, sababta oo ah difaaca jirkiisa waxba iskama celin karo oo difaaca jirkiisii ayaa dhulka la dhigtay. haddaba haddaan soo aragnay waxa uu yahay AIDS, waxaan u gudagalayaa calaamadihiisa. qandho xoog badan iyo dhidid fara badan oo habeenkii ah. qofka oo lagu arko qandho iyo dhidid fara badan khaasatan waqtiyada habeenkii ah, sidoo kale shuban in lagu arko qofkii. waxaa kaleetoo ka mid ah calaamadihiisa hoos u dhac miisaanka jirka ku yimaado. qofkii oo cayilnaa, qofkii oo maasha Allah ahaa, waxaa macquul ah in si degdeg hoos u dhacan waa si degdeg ah oo lama filaan qofkii in uu u shuuqo ama qofkii uu noqdo qof caato sidoo kale nabaro ka soo yaaca maqaarka jirka. calaamadaha kale ee lagu arko AIDS-ka waxaa ka mid ah nabaro inay ka soo yaacaan jirka ama jirkaaga nabaro inay ka soo muuqdaan. sidoo kale qanjirada oo barara. qanjirada ama qumanka oo qofka barara waxay ka mid tahay calaamadihiisa. calaamada ugu dambeysa waa qufac fara badan iyo cunteeri. qofkii maanta dhan inuu qufaco, cuntadiina uu ka go'o amaba uu cuni kari waayo cuntadii. haddaba haddaynu soo aragnay waxa uu yahay cudurkan iyo calaamadihiisa, maxaa sababa? ileen wax walba sabab ayay leeyihiin. cudurkan AIDS-ka waxaa sababa jeermis ilma aragta ah, virus ee loo yaqaan HIV. jeermis ilma aragta ah oo virus ah, jeermiskaasoo loo yaqaano HIV ayaa wuxuu sababaa cudurkan AIDS-ka. haddaba HIV maxaa laga soo gaabiyey? H-ta waxay u taagan tahay human, I-dana waxay u taagan tahay immune, V-dana waxay u taagan tahay virus. human oo laga wada bini-aadan, immune oo ah difaaca jirka, iyo virus oo viruskii ah. haddaba cudurkan qaabkee lagu kala qaadaa ama qaabkee laisugu gudbiyaa? qofkan markuu ku dhaco qaabkee ayuu qof kale cudurkan ugu gudbin karaa? cudurkan waxaa lagu kala qaadaa dhowr qaybood. midda ugu horeysa waa galmo.
qofka qaba cudurkan oo u galmoodo qof aan qabin mar quraba ha ahaatee hal marba ha ahaatee qofkan waa lagu kala qaadi karaa. waxaa kaleeto lagu kala qaadi karaa dhiigga. qofka qaba cudurkan HIV-ga dhiiggiisa oo lagu shubo qof aan qabin. dhiigga markii qofka lagu shubayo waxaa wanaagsan in la iska baaro oo la ogaado. sidoo kale iyadoo la isticmaalo qalabka wax sara ama wax muda sida cirbadaha, mindiyaha, waxyaalahaas in si wada jira loo isticmaalo. qof HIV qabay mindi sartay ama cirbad muday ama wax ku qabsaday ayaa wuxuu isticmaalayaa qof aan qabin, sidaasna way u gudbin kartaa. midiyaha iyo sakiimaha oo la isticmaalo ilmaha markii la gudayo kale mididii cunugan lagu guday in cunugan loo isticmaalo ma wanaagsana. sidoo kale qalabka qaliinka oo aan jeermis dilneyn. qalabka qaliinka iyo qalabka dadka lagu gudaba waa in aan la isla isticmaalin, amaba haddii la isla isticmaalayo waa in la jeermis dilaa. sidoo kale sakiinta xiirashada timajaraha oo si wada jir loo isticmaalo. meelaha timajaraha dadka inta badan way isla isticmaalaan oo ma kala soocaan oo qofkaana loo isticmaalay iyo sidoo kalena jeermis dilid kuma sameeyaan. arrintaasna aad ay halis u tahay. haddaba waxaan ka soo baxnay hadda cudurkan qaabkee lagu kala qaadaa, maxaa calaamadihiisa ah iyo muxuu yahay. waxaan u gudbaynaa hadda hooyada iyo cunugeeda sida ay isugu gudbiyaan. hooyada qabta cudurkan HIV/AIDS-ka cunugeeda ayay u gudbisaa cudurka inta uu uurka ku jiro. hooyada uurka leh cunugeeda intuu uurka ku jiro way u gudbin kartaa. sidoo kale marka uu cunuga dhalanayo, cunuga markuu dhalanayo oo hooyada kasoo baxayo iyadana way u gudbin kartaa cudurka. waxay kaloo u gudbin kartaa hooyada uurka leh markii uu dhasho kadib. naas nuujinta ayay ugu gudbin kartaa. markii ay dhasho hooyada cunuga naas nuujinta way ugu gudbin kartaa. haddaba sidee cudurkan looga hortagaa ama ka hortag ma leeyahay? maadaama uu yahay cudurkan cudur halis ah aana daawo lahayn, qofka uu ku dhaco waxaa lagama maarmaan ah in looga hortago habka la iskugu gudbiyo dhan. waxaan soo sheegay dhowr nooc in la iskugu gudbiyo. in dhiigga qofka haddii uu gaaro uu gudbin karo, in galmada la isugu gudbiyo, in hooyada cunugeeda ay u gudbin karto. dhammaan qaababkaas waa in laga fogaadaa. sidoo kale gogol dhaafka ama zinada oo la iska dhaafa rag iyo haweenba. labada qof oo dhowrsanna waa inay isguursadaan. haweenka qaba HIV/AIDS-ka ha iska ilaaliyaan in ay uur yeeshaan, maadaama ayadii qofkan uuba ku dhacay. ma wanaagsano in intay uur qaada haddana ilmihii ay usoo gudbiso. ma wanaagsana. haddii ay heli karto hooyada qaab uu cunugaas ku badbaadi kara ama uu seef ku noqon karo waa caadi, laakiin qaabkaas haddii ay heli karin ma wanaagsana hooyada in ay uur qaada ama waa in ay iska ilaalisaa. gunaanadkiiyo gabagabadii, cudurkan ma leeyahay wax daawo ah? cudurkan ilaa iyo hadda ma lahan wax daawo oo la ogyahay oo maanta la dhihi karo daawadan qofkii HIV ama AIDS u qaata wuu ka caafimaadayaa. laakiin waxaa jiraan daawooyin kaalmaati ah oo qofka la siiyo maadaama uu cudurkan difaaca jirka dhulka dhiganayo. laakiin wax daawo ah oo maanta loo isticmaalo HIV oo qofka kaga caafimaadi kara ma jirto inta la ogyahay. waad mahadsantihiin walaalaha qaaliga ah inoo sheergareeyo fiidiyogan si ay walaalo badan ugu faa'iideystaan, maadaama cudurkan uu yahay cudur halis ah. soomaalida inta badanna ay ka digtooneen. u sheergareeya walaalihiina kale si ay uga faa'iideystaan. insha Allah waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.